بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مسلم وصموا يميني بالدماء. أنا مسلم نسبوا لديني كل عار. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم. يا زمن الصمت القاتل جاوب قلبي المجروح، فلدي كثير مسائل اترك بابك مفتوح. يا زمن الصمت القاتل جاوب قلبي المجروح، فلدي كثير مسائل اترك بابك. Christmas Day inaad ku tahniyadaysaa ma bannaana. ilan 25 December waa bidca masiixiya, waa awthaantay ka soo naqliyana waa ibtidaaca iyagu la yimaadeen. bidca muslim baan lagu ogolayna ma bidca kristan baa markaa lagu ogolaanaya inaynu inagoo muslime dabaaldegno oo u dabaaldegno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badanoo ka mida ay leeyihin waa ciid wathaniye, ciid xataa ciise dhashay ma aha. oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan. maxaa loo dabaaldegayaa markaa? dadka muslimiintaasa isagaga darsameen maxaa xalaala iyo maxaa xaaraana. waxaa la mida ciidaha kan new year baa la mida sanadka cusub. waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidco agtooda ka ah haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay. haddaba ayuha alxiba, sharci ahaan markaan eegno ciidda waxaa la yidhaahdo waxay ka mid yihiin cibaadaadkay ku jirtaa sida manaasigta kale, qiblada, salaada, soonka iyo wixii la mida. christmaskuna ciid jaahiliyeed buu ahaa, ciid dadka aan ilaahay rumaysnayna rumaysan awthaanta ciiddoodii bay ahayd. inaanay marnaba u bannaanayn dadka muslimiinta ah ciidaha diimaha kale inay ka qayb galaan. christmasku imaa ciid kristan inuu noqdo, hadduu noqon waayana ciid wathani buu noqday. jumcadaa ciid inoo ah, sabti inooma aha. ciid aladxa iyo ciid alfitri baa ciid inoo ah, kuwooda kale ciid inooma aha. sidaa ogeed ayuha alxiba, gaala isjeclaysiintan iyo gaala kudayashada tani diinta kuma bannaana. nebigu wuxuu leey khaalifu lmushrikiin, war mushrikiinta khilaafa, waa caqiidada iyo diinta iyo shareecada iyo ku khilaafa. acyaaddu waxay ka mid tahay waxa la isku khilaafsan yihi. calaa kulli xaal waxa ay gaala walaaqday ee hore iyo dib u guurtay ee sanamadeedii iyo waxeeda u baxsatay, maxaad ula dabaaldegaysaa adiga kaaga xidhan? maxaa ciid ka dhigay? habay yaraatee ciidahaasi wax ay shareecada islaamigaa meel kaga leeyihiin ma jiro. muslimiintii dhibtana qabsatay waxa weeyaan multicultural society markay la noolaadeen, bulsho noocyaad tiro badan isugu jirto diimo badan haysta, may kala garannin waxay qaadan lahaayeen iyo waxay ka tegi lahaayeen ee wax walba way iska qaateen. idan tahniyaadka la samaynayo ayaamaha wathaniga ama ayaamaha diimaha kale ay haystaan kristan yuhuud waxay doontaa ha ahaato ma bannaana. laa hadiyad bixinteedaan bannaanayn, walaa tahniyadeedaan bannaanayn sida jamaahiir alculamaa u badan yihiin, walaa ku dhaqankeedaan bannaanayn. dhaqamada iyo diimuhu waa inay kala socnaadaan. waa inaad dhaqan gaaleed ka mid noqonin. qof muslimaad tahay, mumayis, bini aadamku wuu isgumaystaa, laakiin waa inaad xor ahaataa oo diintaada aad xor ugu ahaataa. maalmahani ama wathaniinimo ha ku salaysnaadaan ama diimo kale ha ku salaysnaadaan, maalmo muslim iyo diin islaam ku salaysan maaha. sidaa awgeed in laga qayb galo sinaba uma bannaana. sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam.